madaxweynaha qaranka ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka golaha wada tashiga qaranka. Shirkan wuxuu ku soo aadayaa xilli aad iyo aad muhiim u ah oo danta dalka iyo dowlad dhiskaba muhiim u ah. Shirkan ajantihiisu wuxuu ka kooban yahay laba qodob: dardargelinta dagaalka ka dhanka ah khawaariijta iyo dhammaystirka dastuurka. Waxaad la socotaan in labadan qodob oo ajantaha shirkan uu yahay laga gaaray guulo badan, in dagaalka khawaariijtana muddo badan uu soo socday lagagana guulaystay meelo badan, insha allah inta kalena inuu ka dhammaado. Dastuurka shaqooyin badan baa laga qabtay oo shirka golaha wada tashiga qaranku xilligii hore fadhigiisii hore uu soo gudbiyey. Haddana inta dhamman in la dhammaystiro shirkaas guulaha ka soo baxayana in dowlad dhiska Soomaaliya iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed farxad iyo guul ay u noqoto in hore loo dhaqaaqo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.